السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadli doonaa privacy policy-ga WhatsApp-ka ee cusub ee soo baxday 4 cisho ka hor. Maanta bishu waa 11 waxay soo baxeen bisha 4teedii. Marka maanta waxaan ka hadli doonaa macnaha waxyaabaha cusub ee lagu soo kordhiyay WhatsApp-ka. Marka siyaasado cusub weeyaan. Marka xagga sare ka bilowno waa information-ka ay urursanayaan marka horeba qolada WhatsApp-ku. waxa ugu horeeya kuwa aad u bixinayso first waxa ku jira number 1 ka your account information adigu waa account-kaaga macnaha macluumaadka ka bixinayso weeyaan. For example number-kaaga marka hore number-kaaga geli, number-kaaga wala save gareysanaya. marka kale waxa lagu warinayaa danaamka ka sii baxayso number-kaaga geliso waxa lagu warinayaa profile picture dooro profile number na dooro profile name magacana samayso. qaybta ku xigta waxa yahay waa message-yada iyagana waa la save gareysanayaa. qaybta ku sii xigta waa undelivered message waa kuwa aanu qofka wali helin amba aan wali gaarin. imaka maanta qofka ku tiri salaamu calaykum qofkaas wali message-ka mu arag intaas waxay ku jiraysaa meesha 30 cisho kadib markaas serverka way ka dhigi karaysaa serverka weyne WhatsApp-ku iska leeyahay shirkadda WhatsApp-ku. qaybta ku sii xigta waxa yahay media forwarding macna waa qaybta imika maanta waxay helaysaa video amba sawirka saaxiibka amba qof kale u sii share gareynaysaa amba sii forward gareynaysaa kaan waa la helayaa kaan u save gareysanayaan. waxa kale la helayaa your connections-kaaga macnaha waxa la xiriiro amba dadka la xiriiro nooc kastaba ha ahaadaan nooc yihiin waa la helayaa. qaybta ku sii xigta waa status information status-kaaga waxaad soo dhigayso isagana waa la hayaa. waliba wuxuu ku leeyahay mobilka doonta ka soo dhig amba iPhone amba iOS amba Android intaba ka soo dhig intaba waa la haynayaa. qaybta ku sii xigta waxay transactions and payments data intana mar hore maamulka iyaga soo baxin wali laakiin aad lama soo saarin. marka WhatsApp-ka ayaa lagu soo kordhinayaa qayb cusub oo ah inaad inagu sidoo kale wax ugu dirano in aad qof kale WhatsApp-ka lacag ugu diri karto kale ayaa la soo kordhinayaa. kaana iyaga gacanta ku haysanaya lacagtaada iyo waxaaga dhan iyaga gacanta ku haysanaya. qaybta ku xigta waa customer support and other communications macnaha waxyaabaha kale. For example inaad Gmail-kaaga kale hadda Gmail gashato mail amba aad qof u qorto kale waxaasna waa la haynayaa. message-yada badanka koobiyeysato ee markasta isticmaasho kuwana waa la haynayaa. intaas waa information-ka ay marka hore urursadaan WhatsApp-ku shirkadda WhatsApp-ku information-ka marka hore urursadaan waa intaa. qaybtan ku xigta update-ka la siiyay siyaasadda cusub ee adna soo baxday waxa weeye markana waa automatically si toos ah ayuu isku ururinayaa datooyinkani macnaha information-kani. kuwa ugu horeeya waxa yahay marka usage and log information macnaha waa number-kaaga bal marka hore waxay raaheen waxaan urursanaa information-kaaga caadiga laakiin marka waxay raaheen automatically isku ururinayaa anagoo ururinba. marka waxa kamida message-yada dadka la hadasho status-kaaga gurubyadana waxa ku jira gruupka magaciisa amba gruupka magacyadiisa gruupka sawiraantiisa iyo description-ka gruupka xagga sare lagu qoro macnaha gruupkan waxa ka socda intan wada helayaa. waxa kale oo ku sii xiga payment-iskaaga macnaha lacagaha bixinayso amba waxa lagu soo dirayo wanagina ridee meeshan waxa lagu soo kordhinayaa qayb cusub oo lacag bixisa amba lacag la isugu diro kore transfer money kaasna wuu ku jiraa. qaybta kale ku sii xigta waxa yahay profile photo-da waa la haynayaa macnaha profile picture-kaaga. waxa ku sii xigta about waxaad ku qorato xagga sare kugu qoran macnaha profile-kaaga ka hooseeya kaana waa la haynayaa. waxa ku jira inaad online tay xiliyada soo gasho waxa soo dhan iyo last scene-kaaga xilliga aad soo gashay macnaha iyo xilliga aad ka baxdo inta waa la haynayaa. tan kale waxa yahay device and connection information macnaha internetka kugu xiran operating system-kaaga macnaha mobilkaaga noocee weeyaan. browser information mobilka macnaha browser-ka isticmaasho amba Google Chrome ahaado amba Internet Explorer ahaado intaad isticmaasho kaasina wuu kugu jiraa meesha. luqadda markasta isticmaasho amba aad ku hadasho Carabi, English, Hindi, Urdu waxaad ku hadashaba kaana waa la haynayaa. IP address-kaaga IP address-kuna wuxuu ka bilaabmaa badanka 192 kaasina wuu ku jiraa. intaaba waa la haynayaa. intaas automatically ay isku ururaysaa. automatically wuxuu yahay
cid ka urursanaysa ma jirto, laakiin WhatsApp-ka ayaa kaydsanaya. Markuu kaydsado wuxuu u dirayaa Facebook-ga, xitaa adigoon Facebook account aan lahayn ayuu haddana u dirayaa qolada Facebook-ga. qaybta ku sii xigta waxay yahay waa location information, macnaha waa barta joogto. waxaa jira imika live locations buu leeyahay WhatsApp-ku oo qofku u dirayso, macnaha dhahayso xaggaasan jooga, xagga kale GPS igu soo raac, kaana waa la save gareysanayaa macnaha wadanka joogto. marka xagga hoose balaag inta ugu hooseysa, we also use your location information for diagnosis and troubleshooting purposes. intaana qaybtaasina ku jirtaa. cookies-ka soo haray, cookies-kuna waa kuwii horeba lamid yihiin. for example waxa yahay waa khadkaad isticmaalayso kale, ma mobile ka isticmaalaysaa, ma desktop ka isticmaalaysaa. imakana waxaan naqaanaa in mobilkaaga aad ku xiriirsato laptopkaaga kadibna aad labadaba ka isticmaasho. kaana waa la isticmaalaya, waxaa la eegayaa khadkaad ku jirto, laptopka amba computerka IP addresskiisa, waxaasoo dhan waa la isku eegayaa. haye marka qaybta ugu dambeysa waxay yahay third party information. tanna waa qaybtii advertisement-iga. berdhowto waxaa la maqlayo lahaa WhatsApp-ku waxa uu bilaabi doonaa xaysiisyo. marka xaysiisyadaasi waxay ahaayeen adoo macnaha WhatsApp-ka isaga jira ayaa advertisement amba ads baa kusoo baxaya. ads baa taqaanaan, adskaas kusoo baxaya xaysiis, macnaha shirkadda waxay xaysiisinaysaa, iyagu lacag ka faa'iidayaan, laakiin adigu views kan baad wax ugu kordhinaysaa iyaga, wax kale ka faa'iidmaysid. adna waa lagu ogolaanaya free buu ku ahaanaya forever. marka qaybtan weli kumay darin, laakiin waxa ay dhaheen haddii aan qaybtan ku darno amba aan advertisement la bilaabo, waxaa dhici doona in aanu dib u update garayno insha allahu tacaala. marka qaybtan oo dhanna waxa ay dhacaysaa, wuxuu ku saarayaa new privacy policy ayuu ku saarayaa. bacdeen adna waxaad taabanaysaa agree baad taabanaysaa. agreedaasina waxay ka dhigan tahay waxaanoo dhan animka soo sheegnay waan ogolahay ee urursada ay ka dhigan tahay. marka maanta wadanka Turkiga ayaa baangareeyay WhatsApp-ko, iska xidhayba wadankiisa ka mamnuucayba, waayo dee sababaha jira awgood. marka xiliga laga xirayaan wuxuu yahay time baa loo qabtay, deadline baa loo qabtay. waqtigaasina wuxuu dhacayaa 8 February ayuu dhacayaa. 8 February markii gaadho, haddii aad aqbali weydo privacy policies-kan, akoonkaaga waa la xirayaa. saasaa lagu xirayaa. sii share garay videoga si asxaabta kalena wax uga faa'iidaan insha Allah. Thank you so much. So have a